تركيا ويش كيف وقينا سنتها مقت وارد البحر تبي تفعل علينا شامقت maya waxaa mas ka fogeyna waa gabar Soomaaliyeed laakiinse markii gabadha cideeda la xaqiro ma aragtay oo cid kale loo saariyo meesha waxa ka dhalinaysa ma taqaana Soomaali xoogaa way iskala bixisa ma fahanti maadaama wiil oo hadda diga oo dhahay gabadha waa dagoodiye marka gabadha dhaqan dhiigeeda ma lihiin laakiinse heer abtiya u nahay runtii waa in la sheegaa Soomaha maadaama qabiilka ana qabiil ma sheegin ma fahanti iska ma dheereen ani gabar Soomaali ahay gabadhan waa dhalay gabadheedu waa in loo hiiliya anina bariina hiiliyo واي ha marka Soomaalidu way isguursataa ma fahanti yaa la dhiilsin intay ka imaad iyo waxaas ma jirto waa nink waa wixii xun waa la iska qabtaa marka gabadha hala caawiyo imaan eer hala gaarsiiyo ها مهمة واحد maxkamado ها horta gabadha waa inaa caawiyo bas gabadha horta meesha gabadha aan taaganahay waa noo qabiil gabadhan Kenya ku dhalatana diiwaan leeyahay macnaha dugoodii waxaan ma naqaan jiranake meel ay naga keentaan family walada Kenya ka imaaday kulay tooqolka sheegayso تقولي niyo maxaa tiri ku soo celi adoo ما qabiilka waan fahmay يا dugoodii waan maqlanay laakiin waxaan ku leeyahay macnaha qabiilka sheegayso horta naga jooj ana Kenya qabiil ma waqaano meesha waxa taala cadaalad gabadha dugoodii ma qalma dhigi kartid ما بين دول ما قنصعني دول جربت بين ognahay I never said so maxamed waxay u qasbaysaa raali marka waxaan ku sheegay maxkamada meesha waxa taala gabadhan la dulmiyaa taala qabiil ma yaala meeshan dadka dulmiyaa macnaha oo dhibka u geystana qabiil ma aho raggan Soomaali ma matalaan macna meesha qabiil ma taalo raggan waa in birta laga digaa that's the only point lagu soo cadeeyo ilaahu ma noqoto walaalkii noqdo waa in birta laga digaa that's only the point meesha taalo macnaha ka gabadha walaashi waxba ay soo budboodin marna xagga ay u boodin marna xagga ay u boodin ayadoo raali ah ها قبل ورير كذا يدفاع يصير له هذا رير كما هي تقولي ما هو له سومالي هو ريره هو الدفاعية أفرتنينا كلام مركا والله سوق بتسمع مثال نبى بحثه كيس كان wado ana ado meel baan wacaya oo warka buuxaan ku keenay koldhow waa ay kordhan insha Allah bidna waxaan ka dhaceen waa macnaha Nairobi ka dhaceen hadii Nairobi ka dhacday qaas ahaan meesha ka dhacday tahay Bangaali leeyihiin biidna illah within 15 minutes aan ku keenay warka insha Allah soo koombo واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد دمار والبركين وفوق قبصده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قولوا كريكين يمي مدد هرده يجوا هبين كيو لما يسوي شيء دمار ملاري ومرقامان صباح لي ما سوق عار كينيا هبين كيبا يلا ما هبين ولا يسوي شيء دان صبحي يسيحدان سنقول قاعدان واحدة قبل الدليل هبين كيو لما يسوي شيء ده هبين ودن ولا يسوي شيء ده واجا كوبرية واي صبحي بقى يلا يسيحدان كي شقتك يا لكن وحوقها هراو يسيحدان إدنتي سوقا كتعلو لكن بدن كود وحو بدين محكمة ضد لبيلو وقربه وحكسوه واي marka culaysba ma saarna badankooda واي marka wiilkan hadda sawirkiisa bedel sawir caadi ah soo saar sawirkiisa waxa soo saarta kanada lama garanayo sawirkiisa saxda ah soo saar teeda labaadna waxa sheegaya wiilkan markasta wuxuu caadaystay xumaan hadda ka hor dadkii la socday intuu gabadh ka duubay kliibiyaan shaxuma ayuu mobilkiisa ku haysanayay kabacdi gabadha yar isku joogtay miya ha waati gabadhi soo qashaftay ee sawirradii banaanka la keenay واي saasuna isku dhawrta ugu soo laaban karin oo wad ogtay wadamada Western-ka qofkii haya sawirad ka qaaday asagoon raali ka sharci baa lagu tiigsanayaa واي sidii buu marka gabadha reerkooda gabadha yareeda bariga fiidiyoyadii iyo wax iska duuduubeen xagee ku dambeysay uu dayma soo gali kara wadanka Soomaaliya isagu ma iyadu xagee ku dambeysay iyadu ma noosha wuxuu yiri habeen uu live ka hadlayay dadkii daawanayay way daawanayeen wuxuu yiri ma soo gali kara wadanka walaaladeed baa ay dhaaranaya ehelkeedii dadkeedii oo dhan burxita sharciga hadaan hor iman lahaa buu dadkoodii baana wuxuu ka hor iman kareynin واي saasuu sheegay habeen uu live ku jiray afkiisa ka qartay marka teeri ma noosha teerid ma nooshay wuxuu yiri waqtigii wuxuu yiri aan waxaan sameeynay ayay gacanta tattoo ka dhigatay ku tumatay buu yiri magaciisa may taariikhdii dhacdada la soo qarxiyay ayay gacanta ku tumatay buu yiri xusuus dheer bay ku leedahay buu yiri marka wuxuu ma tagi karayo wadanka sababa jira awgeed buu hadan xitaa wuxuu sharciga is horgeeyo uu reerkoodii baana wuxuu ka joogay walaaladeed buu waa gabadh walaala dhalatay buu واي taasoo qortay horta sagaafkiisa ka qiranaya habeenka
labaadna waxa inantan waxa la shan bay ku kufsadeen waa loogu inantu waxa la xitaa caruur baa u leedahay dibaashadiis bay ahayd walaa waxa la caruur baa u leedahay laba ciyaal u lahayd adi kulay kaasinkiisa ka bacdina ninka Mareykanka ka yimid gabadha shirqoolay asagoo baxsanay waxa lagu leeyahay de in la xubbi xaq baa leeyahay xaqi baa qashafay sawradii baa u direen haddaad hadashay ku dhaxeen waanu kugu rakaataynaynaa way markay diraan isla markiiba booliska geysay ninka kalena isagoo airportka ka baxsanaya ka Mareykanku baa la saas lagu soo qabtay way haye marka ninka gabadha la sheekaysanay waa ka Mareykanka ka yimid gabadha shirqoolay way gabdhaha Soomaaliyeed oo Ilaahay xaq ha tusay qof yar oo iska ladan bay iska wada xiisaynayaan backgroundkiisa ma fiirinayaan way yaan ha baasaboorkaas dumarka wallahi ha backgroundkiisa ma fiirinayaan waxoogaa lama yaabayo duruufaha iska jira xaaladaha iska jira marka waxyaalahaas iyagana laga yaabaa inay danaynayaan